wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jabinayeen arday dhamaysatay jaamacadda qaybta kalkaaliyaasha caafimaadka ama neeraska ee jaamacadda Amood waxaana munaasabadaasi soo qaban qaabiyay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Amood iyadoo ay ka qayb galeen waalidiintii dhashay ardaydaasi maamulka gobolka iyo kan degmada Boorama salaadiin iyo waxgarad aad u tiro badan waxaana munaasabadaasi hadallo warbixin iyo soo dhaweyn ka soo jeediyay hormoodka kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadda Amood Dr. Said Ahmed Walhad wuxuuna ka sheekeeyay marxaladii kala duwanaa ee ay soo martay asaaska kulliyadaasi kalkaaliyaasha caafimaadka ee maanta difcadii koowaad ay ka qalin jabinayso kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadda Amood waxay bilaabmeen akademiyadii 2001 waxayna ku bilaabmeen 15 arday laba macallin iyo geed hoosti maantana ardayda ku jirta waa 325 macallimiintuna inta joogtadii waa 25 inta kalena waan soo ugaarsanaa Soomaaliland oo dhammaan ka ugaarsanaa marka kooban meeshan mid ka helaba waan ka soo ugaarsanaa saasana ku wadnaa isaguna munaasabadaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Amood Professor Ahmed Abdullahi Boqore waxaa munaasabadaasi shahaadooyin guddoonsiiyay wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland isaga oo munaasabadaasi ka hadlay isla wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Hussein Maxamed Maxamuud wuxuuna sheegay in kulliyadani ay tahay mid magac weyn u keenaysa dalka Soomaaliland isaga oo sheegay in loo baahnaa in kalkaaliyaal caafimaad la soo saaro si ay dhakhaatiirta u taageeraan waxa isaguna munaasabadaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Ali Xaamud Jibriil oo dhinacyo badan ka hadlay waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in haddii ay tabasho iyo cabasho ay jirto in laga wada tashado waxaana uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay wax badan ka qabatay adeegyada kala duwan ee dhinaca bulshada ee gobolkan Awdal waxa isaguna munaasabadaasi ka hadlay maayirka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shidabilo oo sheegay in nabadgelyada looga baahan yahay inay dadweynuhu kaalin ka geystaan gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal oo isaguna munaasabadaasi ka hadlayay ayaa tilmaamay in wax lagu farxa ay tahay in arday dhamaysatay kulliyadda caafimaadka oo u badan gabdho ay maanta ka qalin jabinayaan isla markaasina munaasabadeedii aanu fadhino waxaana kulliyaddan caafimaadka ee maanta difcadeedii koowaad ay qalin jabinayso la bilaabay sanadkii 2008 ilaa maanta oo sanadku yahay 2010 waa caafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama.